hagaag daawadayaal safaaradda Soomaaliya ee dalka South Africa ayaa wado dadaalo ku aadan sidii markaasi ay tayo waxbarasho oo wanaagsan ay u heli lahaayeen ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata dalkaasi Koonfur Afrika. Haddaba u qaybsamaha arrimaha diinta iyo qaabta ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Sheekh Aweys Hamza oo booqasho ku tagay jaamacadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu soo indheeyay tayada waxbarasho ee halka ka jirta iyo ardayda Soomaaliyeed sida ay wax u bartaan. waxaana wareysanaya wariyahayaga Cabdullaahi Amiin Qorshe. ugu waxaad iga warantaa todobaadkan waxaa socdaal ku tagtay jaamacadaha lagu barto maadooyinka islaamiga ku yaala dalkan Koonfur Afrika caruur Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliya ayaa dhigta wax ka barta jaamacadahaasi bal socdaalkaas iyo waxyaabaha kula soo kulantay inoo sheekay. alxamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. markor walaalo mahadsan tahay Cabdullaahi Qorshe sida aad maanta u istaagtay inaad mar walba aad barnaamij walba aad qabato oo ma arkaysaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad tusiso iyo TV-ga qarankaba ma arkaysaa aad baan ugu mahadinaya. midda labaad waa runtaadii waxaan aaday weegi hore isbuuci la soo dhaafay gobolka KwaZulu Natal oo ma arkaysaa marka wax kala dan kala kama lahayn waxay ahayd dantan u aaday inaan u gurba galo aan aado jaamacadaha islaamka ku yaalo oo ardayda Soomaali dhigata 3 bilood iyo 4 biloodba marban tagnaa oo aan kormeernaa sida waxay u bartaan iyo noloshooda iyo xaaladahoodiba. waxaan ka bilaabay magaalo la yiraahdo Newcastle waxa ku yaala jaamacad aad u weyn qadiimna ah oo jaamacadaha wadankan ugu horeeyay culimada wadankan iyo kuwa caalamka badigoodiba ka baxay. jaamacadda Newcastle la yiraahdo ilaa 700 wax ka badan arday dhigata. marka arday badan sanooyin badan la soo dhaafay arday badan Soomaali way ka qalin jibiday. waxa kamid ah madrasada Abubakar Sidiq ardayda badan dhigata oo macallimiinta ka ah halkaas ay ka soo baxeen iyo madaarista tiradoodaba oo badan oo Soomaalida hadda ardayda haysa. marka Soomaalida hadda meesha joogta oo jaamacadda dhigata oo boarding ka ah waa 12 Soomaali oo daafaha wadaba kala duwan kala yimaaday. ninba Australia ka yimaaday oo luqadda Soomaaliga hataa ku yara dhib badan laakiin sanadkii shanaad buu dhiganaya hadda. ninba Kenya ka yimid yarba Kismaayo ka yimid kuwa South Africa ragii locationada ku jiray oo dareemay in waxbarashada qiimo ay leedahay oo halkaas aan geynay oo wax baranay oo hadda qaar dhameen rababa ku jiraan. marka waxbarashadooda aad buu u fiicnaa waa heer sare oo wax weyn waan ka rajeynaynaa Ilaahay haduu yiraahdo. qaar baa hadda dhameynaya qaar baa bilow ah. markaysaa maalinta hadda baxaynay nin baan geynay oo halkan ka wadnay oo niyeystay inuu wax barto marka jaamacadda asagana ku darnay. marka waa Ilaahay mahadiisi waxaan ka baxnay Newcastle waxaan tagnay Pietermaritzburg Bay jaamacad ku yaalo oo jaamacad Nuur la yiraahdo oo dhigata indhoolayaal. jaamacadaas waa jaamacad aad u weyn oo jaamacadu Nuur la yiraahdo indhool kaliya dhigta. waa jaamacadda naga qaabishay Soomaali ahaan 3 indhool Soomaali ka laga keenay oo dawladda Soomaali u fududeysay imaashaalkoodii inay halka wax ka bartaan. marka dawladda aad bay u mahadsan tahay sida indhoolka dadka ardayda indhoolka ah oo u baahan in gacan loo qabto oo wax badan loo taro siday ugu soo fududeysay inay South Africa ku yimaadaan ay jaamacadda wax ku bartaan. waa tan hadda kaamirada aad ku arkaysid ardayda aad bay u faraxsanayeen. waata marka ardaydaasi muddada joogay ku dhawaad ilaa 5 bilood ay sii gaarayaan wana 3 arday oo maaragta Soomaali laga keenay bal noloshooda iyo si jaamacadda ula qabsadeen iyo ma jira wax qabada oo ay la kulmeen inta jaamacadda dhiganayeen. wallahi aad bay u fiican yihiin ardayda way faraxsanaayeen. waxyaalaha farxada ugu weyn markaan wareys waxa gelinay waxay yiraahdeen safaaradda oo markii labaad noo timaaday oo na soo booqatay oo waxbarashadeeni iyo ma arkaysaa nolosheeni naga warqabtan ku faraxsanayba. marka farxad aan la koobi karin hadaladooda waad maqlaysaan siday u hadlayaan oo wax badan ambassador Jamal Maxamed Barow iyo first secretary-ga safaaradda Ismaaciil Soomane labadooda ka qayb galay ayaan dhaweyd aaday oo aad bay u farxeen. aaditaanka hadaan aaday iyo ma arkaysaa ka warqabnana aad bay ugu faraxsanaayeen.
xagga noloshoodina waa 100% boqolkiiba boqol aad buu u fiicnaa meeshay degan yihiin siday u nool yihiin waan wareystay waxbarashadii ka warama ma ku faraxsan tihiin waa sida hadda hadaladooda ay u dhigeen aad bay ugu faraxsan yihiin waxbarashada ka safaarad ahaan muddaday halkan joogeen oo kale ka warqabkiinu maadaama mas-uuliyadda kuwaad idin saaran ay tahay la socoshada gaar ahaan xafiiskaaga arrimaha diinta iyo qaafta safaaraddu ka warqabka aad caruurtaas ka warqabtaan inta leegyahay wallahi aad baan ugu warqabnaa alxamdulilah ilaahay baan taa ku mahadinaynaa subxaana watacaala waa tan nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaahay wuxuu mar walba idinkugu gargaaraya ma arkaysaa ilaahay wuxuu mar walba idinkugu gargaaraya kiina ducafadiini sidaad ugu gargaartaan ma arkaysaa marka xadiis macnihiisu uu ahaa marka aad baan ugu warqabnaa markii labaad baa loo tagay safiirkoo mar tagay iyo markaan hadda aniga aan tagay 3 bilood iyo bar bay joogaan marka wax alla waxay u baahan yihiinna waan dhinacooda mar walba istaagana insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaa 7 sano ay waxbarashadooda ka dhameynayaana wax alla waxay u baahdaan inaysan cidna tabin oo anaga aan ka faala qaadnay insha Allah taala waxbarashadu way haystaan xagga nolol ahaana way haystaan wixii ziyaada ay u baahan yihiinna khaasatan xafiiskeyga insha Allah taala waxna uma baahan doonaan oo xafiiskeyga un baa ka faala qaadi doona insha Allah taala caruur badan waxaa jira sidaas oo kale oo aragala oo baahiyo gaar u qaba maaragta waxbarashada islaamiga ah ee fursadaha waxbarasho ka jira dalkan Koonfur Afrika ka safaarad ahaan gaar ahaan xafiiskaaga caruurta dalka joogto kale wali u baahan waxbarashada in dalkan ku yimaadaan oo kale waxaad ka saacidi kartaan ma jirtaa insha Allah taala waan kala hadlay jaamacada qaarkoodii oo aad warkaan u soo dhaweeyay in wadanka Soomaaliya laga keeno caruur inay wax bartaan oo ma arkaysaa jaamacada islaamiga halkan ku yaal wadankan waa wadan jaamacada aad u tiro badan oo islaam ku yaalo oo waxbarashada islaamka diinta islaamka lagu barto marka aad bayna noo soo dhaweeyeen marka waana insha Allah taala waana u fududeyn doonaa cid alle cidii rabto oo danaynaysa inay wax ka bartaan wadankan South Africa insha Allah taala way fududahay wasaaradda oo qaafti arrimaha diinta hala xiriiraan ee Soomaaliya wax alla waxay noo soo gudbisan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan u fududeyno si sahul ah ay ku yimaadaan oo halkan waxay ugu bartaan insha Allah